Faa'iidada caafimaad ee cabista biyaha diiran waxaa laga yaabaa inay caado ku tahay inaad cabto koob kafee ama shaah markaad aroortii soo toosto. Qaarkiin waaba suurtagal inay waqtigaasi cabaan galaas biyo qabow ah oo ay sidaa maalintooda ku bilaabaan. Laakiin caadooyinkaasi ayaa xaqiiqdii u baahan in dib loo eego arrimo la xiriira caafimaadka qofka. Sababtoo ah cilmi baaris la sameeyey ayaa muujinaysa in cabista biyaha diiran oo caloosha maran ku dhaca in laga helayo faa'iidooyin caafimaad. Stella Metsovas, oo ah khabiirad caafimaad oo ku takhasustay cilmiga nafaqada iyo cunnada, ayaa sheegtay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in biyaha diiran oo aroortii la cabaa iyadoo lagu darayo liin ama shaah ay dhimayaan baruurta caloosha ku samaysantaa. Stella waxay kaloo sheegtay in cabista biyaha diiran ay awood u yeelaan mindhicirada, taasoo gacan ka geysanaysa baytiri habsimo socodka shaqada dheefshiidka oo keenaysa in qofka uu si caadi ah u saxaroodo. Haddaba barnaamijkani waxaan idinkugu soo gudbinayaa ilaa 7 faa'iido oo jirka uu ka helayo cabista biyaha diiran ee aroortii hore. Qodobka 1, waxay ka hortagaan gabowga degdega ah. Cidinama doonayso in da'deedu ay ka soo hormarto oo dhaqso ay gabowga u taabto, waxaana taasi keentaa wasakh ku jirta jirka bini'aadamka oo sababta in qofka uu u nuglaado cudurro keena gabow degdeg ah. Biyaha diiran cabistoodu waxay jirka ka nadiifiyaan wasakhda soo gasha. Waxaa intaa dheer, waxay cusboonaysiiyaan unugyada maqaarka, kuwaasoo kordhiya awoodda jir ahaaneed ee qofka. Waxaa dabciya oo daawo u ah kaarka xanuunka ku yimaada marka ay haweeneydu qabto dhiigga caadada ah waa cabista biyaha diiran, kuwaasoo kala bixiya muruqyada caloosha, gacanna ka geysanaya in gabadhu naxariis ay dareento xilliga caadada ay qabto. Waxaa intaasi dheer, biyaha diirani waxay daawo u yihiin dhammaan noocyada xanuunada qabatinka ah, iyagoo hagaajinaya wareegga dhiigga halbowlayaasha oo qofka deetana ay murqihiisu dabcaan. Qodobka 3, waxay gacan ka geystaan iscaataynta qofka. Waxaa laga yaabaa inaad isku dayayso inuu miisaankaagu dhimo oo aad maqashay in cabista biyaha diiran ee aroortii arrintaasi ay qayb ku leedahay. Taasi waa dhab. Biyaha diirani waxay kordhiyaan heerkulka jirka oo keenaysa in qofka uu helo tamar badan oo jirkiisa uu ku dhaqdhaqaaqo si uu isaga saaro ama uu u gubo baruurta jirka ku jirta. Haddii maalintaada aad ku bilowdo cabista galaas biyo diiran ah oo lagu miiray liimada, waxaa markaa jirkaaga aad ku caawisay inuu kala jebiyo unugyada xeerta sameeya ee jirkaaga ku jira. Biyaha diirani oo lagu qasay liimo waxay sidoo kale shaandhayn ay ku sameeyaan raashinka caloosha ku haray. Sababtoo ah liimada waxaa ku jira maadada la yiraahdo pectin fiber ee jilciya raashinka adag. Mrs. Stella waxay jirad ka faallootaa arrimaha caafimaadka oo la yiraahdo Medical Daily u sheegtay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in cabista biyaha diiran aroortii hore ay waxtar badan u leeyihiin caafimaadka jirka bini'aadamka. Qodobka 4, waxay hagaajiyaan shaqada dheefshiidka. Haddii aad subaxii cabto galaas biyo diiran ah, waxaa saani u shaqaynaya habdhiska dheefshiidkaaga oo si fiican u burburinaya raashinka ku jira. Taasi beddelkeeda, cabista biyaha qabow ee cuntada kadib waxay fariisiyaan saliidda iyo xeerta ku jirta raashinka, waxayna arrintani qofka ku keenaysaa baa la leeyahay in dheefshiidku ku adkaado inuu ridqo raashinka soo galay. Haddaba waxaa qofka la gudboon inuu galaaska biyaha qabowga ah uu ku beddelo galaas biyo diiran ah. Qodobka 5, waxay saxaan wareegga dhiigga. Wasakhda aruurta ee gasha habdhiska neerfaha ama curqiyada iyo baruurta
ayaa meesha ka baxa marka aad joogtayso cabitaanka biyaha diiran. Arrintani ayaa dibadda u saaraysa sunta qashinka jirka dhex yuurarta, waxaana saxma wareegga dhiigga. Qodobka 6 waxay biisaa calool fadhiga ama qarasta. Kuwa badan oo idinka mid ah ayaa ka cabanaya raaxo darro ka timaada calool fadhi ama qarasta. Dhibaatadani ayaa timaada marka ay yaraato in qofka uu suuliga tago. Badanaa sababta calool fadhiga ayaa dhaqaatiirtu ay ku sheegeen inay ku timaado biyaha ku yar jirka. Haddii aad haddaba subax walba aad cabto biyo diiran ka hor inta aadan wax cunin, waxaa badanaya inaad suuliga aado. Taasina waxay yaraynaysaa qarasta caloosha ku jirta. Qodobka ugu dambeeya ee 7 waxay keenaan hurdo. Markaad fiirsato ama aad kabato biyo diiran inta aad u fadhiso xilliyada cuntada, gaar ahaan qadada iyo ka hor inta aadan jiif tagin, waxa hubaal ah inaad helayso hurdo raaxo leh. Neerfahaguna ay aad u dabcaan. Waxay kaloo biyaha diiran ay ka hortagaan in hurdada qalqal ay kaa gasho.